السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا كيستا تي في وبرنامج كله أو كسابسان تكنولوجيا maanta waxaan dib u milicsan doonaa ama aan markii ugu horeysay soo bandhigi doonaa ama soo daahfuri doonaa Motorola Razr. Motorola Razr waa telefoon bilowgiisii hore soo baxay bishii labaad 2020 laakiin markii dambe ay dib u soo saareen hadana September 20keedii 2020 telefoonkan ayaa wuxuu kaga duwan yahay telefoonada kale sida idinka muuqata waa telefoon caadi ah qaybtan hore hadii aan idin tuso waa telefoon caadi ah oo normal ah marka aragtaan waxaad moodaa telefoonadkeennii hore gadaal dambe waxay ka dhigeen glass wax kaga yaala male ka ahayn calaamadda Motorola laakiin screen buu leeyahay waa yar yahay telefoonkan yar oo aad arkaysaan waa 5G connectivity-giisa marka screen-kan waa la isticmaali karaa calculator-da u isticmaalayso message aad ka akhrisan kartaa haddii message lagu soo diro qof message kuu soo diro message aad ka akhrisanaysaa camera uu leeyahay camera-diisa taa hoos ku taala uu sawiraya sawir hadda ka qaaday caadi u shaqeynaysaa portrait bay leedahay kameradiisa hore and so let's go home message-kaaga kameradaada calculator-ka YouTube-ka hataa game baa ku ciyaari kartaa ku jira start da tiraahdo batteriga ku save garaysanaysaa and so screen hore oo specially u sameeyeen taasna waa tan uu kaga duwan yahay telefoonka kale oo Samsung-ga oo foldiga sidiisoo kale and inaan idinku wareeriyo mar rabo boring waaye laakiin screen-kan hore waa isticmaali kartaa waxaa isticmaali kartaa inaad call ka dirsato qof qawacdo and adigoo aan telefoonka kala furin weli aaladaha uu leeyahay ugu muhiimsan ama qaaliga ka dhigayo waa in uu leeyahay shaashad OLED ah oo 6.2 inches ah 6.2 inch waa shaashad aad u weyn kameradiisa dambe intaan u gelin waa 8 GB oo RAM-kiisa telefoonka iPhone ugu weyn ayaa wuxuu haystaa 6 gigabytes ama 6 GB and 8 GB waaye batterigiisa waa 2800 milliamp battery baa ku jira screen-kan ayuu ku dilay kii kale oo Samsung soo saareen xalay waxaan idin tusay tusaale ahaan kan ayaan idin tusay LG oo isaga sidaan u furmaayo baan xalay idin tusay laakiin waxaan wadnaa focus-keena waa kan isaga sidii telefoonadkii caadiga ahayd ayuu furmayaa kala furmay waa kaas waa 6.2 inches screen ah kulli aniga waa yacjabiyay iga yaabiyay waa super AMOLED ama waa AMOLED screen ma aha IPS and screen very bright waaye ma sha Allah aad u qurux badan telefoonkan way u hagar baxeen Motorola call quality-giisa caadi ma aha hadaad qof wacayso wicitaankiisa khatar buu ku yahay waa telefoon markii aad isticmaalayso caadi aad u isticmaalayso waa kana aan fiirino YouTube-kiisa let's go to Kista latest from Kista come on man YouTube-kiisa markaa isticmaalayso saan ayuu yahay markaa ka daashana waa isku laabanaysaa hadaad ku wareegto rabto saan isugu laabaysaa